kulanti wanaagsan daawadayaal waxaan ku suganahay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan duleedka degmada Afgooye oo koonfur galbeed Soomaaliya ka tirsan halkan waxaa ka bilaabanaya abaabul dagaal oo xoog leh ciidamo kala duwan oo xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan iyo qaybaha kale ee ciidamada iyo kuwa koonfur galbeed ayaa ku sugan qaarkoodna haddii soo gaareen iyadoo la fulinayo amar la sheegay inuu ka soo baxay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta halkan waxaa soo gaaray wafdi waxaa soo kale la gaarsiiyay gargaar ciidanka oo dry food ah cunto loogu talagalay ciidamada aan maalmaha laabaynin furmaha lagu cuno gudoomiyaha dhanka qorsheynta ee gobolka Shabeellada Hoose waa gudoomiye ku-xigeenka qorsheynta ee gobolka Shabeellada Hoose Bashiir Maxamed Yuusuf Bashiir Baraabe ayaa soo diyaariyay oo raashinka keenay isagoo fulinaya amar madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ka soo baxay waxaana lagu wareejiyay maanta xoogga dalka Soomaaliyeed deegaankan deegaan u dhow hore waxaa loogu dilay ama toddobaad ka hor waxaa loogu dilay taliyihii guutada 14 Oktoobar gaashaan sare Nuur Maxamed Gaabo Nuur Farey iyo saraakiil kale laakiin howlgalku ma istaagin ciidanka niyadooduna waa diyaarsan tahay waxay diyaar u yihiin in howlgalkan u dhaqaaqaan raashinta maanta la wareejiyay iyo kormeerkan iyo abaabulka halkan ka bilaawdayba waxaa sidoo kale qayb ka ah taliyaha qaybta guud ee booliiska koonfur galbeed ninka lagu magacaabo Cabdi Ibraahim Shaamo Cabdi Dheere oo saraakiishii u soo halgantay gobolkan ka mid ah haddana koonfur galbeed oo dhan booliiskooda xukuma isagana wuxuu ka mid yahay ragga abaabulka halkan u jooga gudoomiye Bashiir waxa uu sheegay isagoo hogaaminaya abaabulka halkan ka socdo inay dhawaan dagaal bilaabo doonaan sidoo kalena amarka madaxweynaha koonfur galbeed ay ku howlgali doonaan raashinkan waxaa ka gudoomay madaxa taakuleenta howlgallada gobolka Shabeellada Hoose ee xoogga dalka Soomaaliya gaashaan sare Cabdi Maxamed Sahal isagoo sheegay inay baahi weyn u qabeen wax badanna ay ka bedeli doonto taageeradan ciidanka dhanka dhiirigelintooda iyo abaabulka halkan ka socday waxaa fariin gaar ah ciidamada uga wadaa madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ay ka go'an tahay in haddii la yiraahdo khawaarijta maaragtay howlgalladooda iyo maaragtay sida dalka looga xoreey lahaa cawi imaalin u taagan salaan gaar ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdicasiis uga wadaa waana iga gudoomayaan insha Allah Ilaahay idinkiisa deeqdan iyo haddii iyo mid ka sii badan waa soo wadnaa insha Allah haddii la yiraahdo waxaan naga go'an maamulka koonfur galbeed haddaan nahay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose haddaan nahay maamulada degmooyinka haddaan nahay ciidamada haddii koonfur galbeed haddaan nahay daraawiishta ciidamada koonfur galbeed daraawiishta haddaan nahay waxaa naga go'an khawaarijta in laga sifeeyo dalka Soomaaliya gaar ahaan saddexda gobol ee koonfur galbeed ku abtirsato waxaan leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mar labaad waa u mahad celinayaa jananka qaybtan xukumo oo haddii meesha fadhiyo taliyaha gaarka oo haddii yiraahdo taakuleenta ciidamada ku magacaaban oo hadda aan ku wareejinayna deeqdan asagana waa u mahad celinayaa gobolka Shabeellaha Hoose meesha aan joogno waa taliska gobolka Shabeellaha Hoose looga talinayay cadawga looga xoreynayay haddii yiraahdo cadawga khawaarijta looga xoreynayay ciidamada waxaan leenahay haddii la yiraahdo koonfur galbeed garabkiina taagan tahay hiil iyo idina garab taagan tahay deeqay diyaar la tahay xoolo geeli diyaar la tahay haddii wax walba diyaar la tahay cadawga inay ciidamada ka barbar dilaantay diyaar la tahay haddii la yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin haddii la yiraahdo taliyayaal waxaan rabnaa deeqdan in nagala wareegtiin kuma eko deeqda hadda waxa aan meeshan ka dhiibayna kaliya kuma ekeen wax badan ay soo daba yaalo insha Allah haddii la yiraahdo deeqdan deeq muhiim ah waaye oo haddii la soo diyaariyo oo ciidamada loogu talagalay ay maaragtay markii howlgallada ay jiraan loogu talagalay inay maaragtay energy ka helaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kaalmadan aad soo gaarsiisay wax weyn bay noo tahay aad iyo aad ciidanku waxa weeye wuxuu wakiil ka yahay shacabka inuu difaaco oo dhiiggiisa naftiisa u horo dalka iyo diinta iyo dalkaba inuu difaaco ballantaas ilaahay hortii baan ku qaadno kitaab baan u marnay inaadna soo booqataan oo aad deeqdan soo gaarsiisaan aad iyo aad yaan ugu faraxayaa anoo magaca taliyaha ciidanka dhulka iyo taliyaha xoogga iyo taliyahan aaggan magacooda anoo ku hadlayo aad baan kaaga gudoomay waxaan rajaynaynaa sida aad ballan qaatay inaan midowno oo cadawga aan u midowno aad iyo aad baan u mahadsantihiin hana loogu salaamo maamulka iyo shacabka deegaankana Shabeellada Hoose waxay ka mid tahay meelaha hadda furmaha dagaalka ay ka furan yihiin al-shabaab ay isku dayayaan inay soo galaan laakiin ragga halkan jooga ee tirada badan ee xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan waxay u diyaarsan yihiin inay gobolkan difaacaan iyo meelo kaleba
wuxuu warar ku soo kordhay waxay kugu soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijyada dambe haddii Allah uu dilo idmo aad ama maasanta adigna nala soco wararka halka aan ka baahin doono haddii Allah uu dilo idmo ku dhawaad 20 sano kadib maanta markii ugu horeysay waxaan soo gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka tirsan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ujeedada socdaalkayga waxay ahayd laba qodob inaan ogaado Afgooye waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose ee maalmihii la soo dhaafay warbaahinta Soomaalida iyo kuwa caalamka aad wax uga qorayeen kadib markii la baahiyay in kooxda al-shabaab ay ku soo dhawaadeen marna la baahiyay Muqdisho Afgooye inta u dhaxaysa ay soo galeen sidoo kale waxay ka mid ahayd degmooyinka ay siyaasiyiintu ku halqabsadaan in kooxdu ay soo galeen ama ay ku dhow yihiin ujeedadu waxay ahayd in xaaladda magaalada soo arko xaqiiqada halkan ka jirtana aan ogaano waxaan u yimid degmo cagaaran oo horumar ka jiro kuna sugan yihiin ciidamo kala duwan oo ka tirsan qaybaha ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed sida ciidanka booliiska Soomaaliya ee Haramcad ciidamo ka tirsan hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed iyo ciidamada kale ee hay'adaha ammaanka raggan wada garaadada xiran iyo ciidamo tiro badan gaadiid xoog leh ayaa ku sugan degmada iyo duleedkeeda inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooyana waa ammaan oo ma jiro wax cabsi ah meel kastana waxa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo bara kontarool ku lahaa qaarkoodna waxay u soo galaan si roonda ah maanta markii aan soo gaaray degmada Afgooye waxaan la kulmay iyadoo ay degmada ka dhacayso xil wareejinta taliyaha cusub ee saldhigga degmada iyo kii hore waxaa xilka la wareegay Dhamme Abshir Macali Aadan isagoo xilka kala wareegay Xidigle Maxamed Cali Maxamed oo ah taliyihii hore ee saldhigga waxaana goobjoog ahaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellada Hoose kuwa degmada iyo sidoo kale waxaa goobjoog ahaa taliyaha qaybta guud ee booliiska Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiinta kale ee hay'adaha ammaanka waxaan maanta u fadhinaa halkan inaan kuwa soo dhaweeyo taliyaha cusub ee booliiska saldhigga degmada Afgooye Dhamme Abshir Macalin Abshir uu soo dhawow halkan waxaa fadhiyo dhammaan ciidamada qalabka sida ee ka howlgala degmada taas waxay ku tusinaysaa in isku wad taliyaha saldhigsiisa waxa laga rabaa nabadoon inuu noqdo oo dadku isku wado waxaan ku wareejinayaa laamihii amniga qaybada kala duwan degmada ka howlgalay ayagoo wada jir ah waxaan ka rabaa inaad gacanta qabsatid ayagana waxaan ka codsanayaa sida wanaagsan ay la soo shaqeeyaan ula shaqeeyaan taliyaha cusub taliyihii qaybta guud ee Koonfur Galbeed oo in ogolaaday inay fursad aan ka shaqeeyo degmada Afgooye intii aan karaanka ilaa iyo lankasta maalmo aan roogay inaan reer Afgooye in shaqeeyo si wanaagsan ka shaqeeyo si gacmo furan aan ka dhawaay oo aan la shaqeeyo si wanaagsan way kale ma hanagay taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka ogolaaday taliyaha qaybta guud Koonfur Galbeed inay u soo warqadeeyeen qoryahan ka jawaaba way baan ma hanagay saaxiibkay taliyihii degmada Afgooye oo horeeyay oo shaqadii quruxda badanayd ku qobadi oo si wanaagsan aan shaqeeyay oo nabaddoonnimada u saatishay ka shaqeeyay way balana ciidan ma hasanta unuuna meeliya ka wadaan hoob un walka tarwayna man ka daraan walaaga soo bidi wala ka daraan hoob walka darwayna ha soo bidi ma laay doonna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliyihii hore taliye maxaa cali oo waqti dheer ka soo shaqeeyay meeshaan wax badan la qabtay dadaal badan soo sameeyay waxaan leeyahay maxamed oo aad u mahadsan tahay dadka Afgooyana nabadoonnimadaadii iyo odaynimadaadii waa xasuusan doonaan war badan meeshaan looma imaan taliye Abshirna waxaan leeyahay taliye Abshir oo soo dhawaaw waxaan rajaynaynaa inaad sidii lagu soo idmaday oo lagu soo rajeeyay inaad maaragtay wax badan aad uga bedeli doonto Afgooye waa meel xasaasiya arrimaheeda dacwada saldhiggeedu weliba aad u xasaasi u yahay waxaa laga rabaa nabadoonnimo badan inta aan ka aqaano waad ka soo bixi doontaa bulshada aan ku aqoonna waxa waaye waa ku baran doonaan inta anugu aan ku jiro oo kaa warbixidoo tiri taliyo fiicana meesha yimid waxaa la rabaa inaad ka dhabaydo oo aad ka soo dhalaasho waa meel aad u xasaasi badan dacwadeedu badan tahay Muqdisho iyo Afgooye waa isku xirmeen magaalada Muqdisho marka ka soo baxdid ilaa Afgooye aad soo gaaraysid goobo ganacsi iyo dadweyne tiro badan ayay noqotay markii hore
waxay aan jirtay dhul bannaan oo firaaqo ah oo aan la deganeen sidoo kale laami qurux badan oo muqdisho afgooy isku xira ayaa halkan ka dhisan magaalada gudaheeda ganacsiga ayaa si caadi uga socda maamulkii degmada uu shaqeynaya kii gobolka waa joogaan hay-adaha kala duwan ee dowladdana waa ku sugan yihiin qaybihii bulshadana shaqooyinkooda caadiga ah ayay wataan xaaladda magaaladana waa ay degan tahay ciidanka dowladdu ma joogaan afgooye ee waxay ku sugan yihiin duleedka magaalada waxayna sidoo kale ciidamada halkaas ku sugan isugu jiraan kuwii kala duwanaa ee maamulka koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka baahin doonaa degmadan sheekooyin kale oo ku saabsan xaaladda inagoo tagi doono ilaa meelaha ugu dambeeya ee ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku sugan yihiin waqtigan